فلذا برنامجكن waxa weeyaan operation-kii dhicisoobay ee maayarka berbera maayarka berbera waxa lagu soo qaaday weerar aan xukuumadda ka iman ama madaxweynaha ka iman ee qaar ka agdhow ka yimid sidii aan sheegay arrintii kliibkaygii ugu horreeyay aan kaga hadlay aan ku sheegay ayaa caddaatay waxa arrintan watay guddoomiye xirsi waxa ka caawinayey oo ka caawiyey mastar khadar oo mar walba ay isku afkaariyeen iyo xasan macallin oo ah ninka shaqadan leh ee wasaaradda dowladaha hoose noqonaya oo lagu yidhi warqadda adigu noqon arrintaasina arrin xirsi curiyey oo ereyada iyo muusiga iyo laxankaba isaguu leeyahay laakiin ay igu jiibinayeen ragga aan sheegay ayay ahayd dowladdeenna in badan baan ka hadlayoo dowlad kalaa ka hoos dhisan oo xirsi leeyahay oo fooq weyn intay karaysatay oo kii madaxweynaha u eg iyo kii madaxtooyada u eg madaxtooye kala dhistay oo halkaa aynu ka daawanayno isagoo wasiirada ku leh wasiir walooba hal wiiggii waanaad maalinta maada xafiiska si xisbigiiya isugu xidhbaan xukuumaddu yacni waa wasiir walooba ii ribort galay sidii madaxweynaha oo madaxweyne kale waxaa kaleynu daawanaynay oo warqadu ku soo saaray iyona arrin inagu cusuboo xogeeyaal inuu u samaysto wasaaradaha oo shadow ministerisa iyana waa arrin inagu cusub yacni xisbi mucaarida ayuubaa dee samaystaa shadow ministeriska ninkaasi dowladda qayb buu leeyahy meelaha ugu muhiimsan dadku isagu keenay baa ka shaqeeya oo isagay riboortkana siiyaan kana amar qaataan awaamiir kuwa madaxtooyada ka soo baxay aan ahayn ayaa mar walbana baxda waa ninkaa guryihiisa ku soo dhisanaya guddoomiyayaasha guurtida ninkaasaa arrintu ka timi markii arrintii ay soo baxday maayarkii inacidin iyo ninka laydhaa iyo wasiirada deegaankiisu waxay galeen madaxtooyada shalay arrintii waxay noqotay arrin aan madaxweynuba ogeyn markii la shiray maba ogi buu yidhi waxaan cidda wata iyo yaa wada de waxaa wada baa layidhi oo soo kiciyey oo nimankii isaga la socdayn jiray weligiiba ee ay isku dhowaayeen xildhibaanada ama xubnaha golaha deegaanka soo kiciyo kala furfuray ninkaa xirsi laydhaa madaxweyne wuxuu yidhi xilligan uma baahnin khilaaf berberina waa meeshaynu iibgeynayno eenu caalamka ka iibinayno ee saldhigyada laga samaysanayo ee ictiraafka maanta aynu sheegayno lagu doonayo haddii maanta khalkhal laga abuuro iyo khilaaf iyo dagaal lah dee waa cidda ka abuurta waa cidaan dalka daacad u ahayn ama rabash la doonaysa ama dhibaato la doonaysa ninkaasina horaan idinku sheegay ictiraafka la leeyahy in xaashi lagu shaabadaynayo cidda koowaad ee kasoo horjeeda waa xirsi wallaahi isagaa kasoo horjeeda wanigaa walla maray halkaana in dhibaato ka dhacdaa buu doonaya oo laysku dilo buu ka dhaco oo laydhaa war kuwani ma qaadi karaan ictiraaf iyo saldhigiyo toonee cidma aamini karta laynaydhaa ayuu ninkaasi doonaya mashaakil buu ka rabaa hargeysuu ka rabaa berberow ka rabaa seemaal buu ka rabaa meel walba wuu ka rabaa dadkan inta fahantay waa in yar ummadeen in la dooriye waad moodaysaayo inan kaa yara reer miyiga ah ayaa gebigooda isku wada dirayo oo wuxuu wada sheegayo waa kaa maal walba rag shaabadaynay daabaqada la dhacaya ee waa soo galeen xisbigayga meel alla meeluu hayiyo meeluu ku wadaana ma jirto ma yihii xisbiga wadan waxaan ahay kulmiye waxaan ahaanayaa kulmiye waxaan la shaqaynayaa dowladda shalayna waa ogeeyeenoo dee rag waaweyn oo isaga dhali karaya ayuu dareersaday markii dowladda isyaanyo oo lagu yidhi xaggeed nin waliba xirsi baa day guuri buuro uu raacay xaggeed nagu wadaa nin quri mu odhan ninku waa ninkii ninkaasi markii madaxtooyada la galay waxba kama jiraan buu madaxweynuhu yidhi waryaa rabash uma baanin meeshaa berbere buuqa uma baaninne xasan macallinaana uu yeedhi caawa nimankii xildhibaanada ahaa ee ridayey isagu
إلى حسن معلم بلا بلمية وحرسها بلمانة هل كيف يكون سوقي وكوي شركة شرائط قبلية كما تحتاجي حسن معلم حالي والله يرى ويحسوينها ويرى سونا تيني ما كان هو الدنيا بورا وديار قرسين مرة باو كاري حسن معلم لبس سوا مرة كان بقى اللي هو الدولة ده كان يخلص نسن دولة دي إيه كأمر قادر سوي لك عليه أركب حوالي بروحها إيش بوغ لغوا باهنا بوغ هاي لغو فرنا كي إمك وحا تاغن قرتي ده أو مدو كي كعضي مسك الله هاي لغو فرنا شوي شوي لغو روحنا بوت إلا عدن شغلي سوو خادق يهي شغلي سنو هايستا هالكاسي أرنتي كل مات لكن ورسيغانا يو دولة دي كوس لسان dhinaca maqluubka waxu wata oo ictiraaf ka soo horjeeda oo meel kale wax lagu wata oo wixii barigii hore ka qabiyoobay dhowr iyo 10kii teedhinkii iyo foodhinkii iyo 12kii wixii ka qabiyoobay ayaa maanta la wadaa sidii ictiraafka iyo waxaas ku xiran loo bajirin lahaa ee ummadda timaal isugu xidhi lahaa ee laysaga wada horkeeni lahaa ee mid walba mid u feedhi lahaa ay ku shaqaynayaan ninkaas dadka liita oo ka caqli badan yahayna ma waayo ummaddeenu waxaanay kala garanayn xanka yare hoose iyo cadaawadda yare hoose iyo waxa yare ayaa gudahooda dhex maray iyo waxaanay kala garanayn waxa weyn aniga ina addin saaxiib ma nihin ma wada hadalno iskumama fiicin laakiin waxaan ogahay in ninkaa meesha cid u dhaantaa maanta aanay jirin meeshaasna meel la taabtaaban karo aanay hayn inuu ninkii shalay meydka ka aasayey markii dowladdiisa intii ku jirtay oo dhammi tegi kara weyda sheekh ninkii meydka ka aasayey ee kaale shaqada ayagu qaban waayeen qabtay inuu yahay bay noo muuqata halkaasaan wax ka eegayna waxaan leeyahay markaa reer somalilandow war ka feejignaada arrintan halkaa ayaan idinku abdheyt garanayaa ayay ku dhammaatay waxaanu dib u dhignay ilaa iyo inta laga gaadhayo 1 bisha 8 2026 in wixii farsamo ah si wada jiro looga shaqeeyo madaxweyne muuse bixi وفقه الله وحن أورنجري وارنيكو أذكى عبد الرحمن عرو أدو الدفاع جرو صاحب كانوا حامل هذا وارنيكو جل عسانا سياسة ذاك وارنيكو أذكى كانوا حاله وارنيكو جل عسانا واي ورتواني دبلوماسيا صار هو شيء لكن بروبلم كوامحي طبعا الشغودي هيك يكو سو صاري laba qaraar oo isku hor imanaya